dadka deegaanka Cada Kibir ee gobolka Galgaduud oo maalmo ka hor weeraro qaraxyo ah ay ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab ayaa isku abaabulay hubkoodan u qaatay inay la dagaalamaan kooxdan diidan nolosha qof kasta oo muslim ah. Bismillaahi rahmaani rahiim. Anuu afarka galma hayo. Sideeta isla jooga. Maqlaysa. Waxa diyaar waahay inay qawris la diriro. Waxaan diyaar waahay inay jannah raasado. Warbeer ma sheegayna. Waliya been la sheegin. hadda marka wax noo banaan oo inaan dirirna ahayn total ma harinba inayna dilaan waxba ka dhaxaynba ayagaana dooray anagu ma aanan doorin deegaan dhan oo ballaaran oo 200 kilomitir isku wareegsan qof dirirayda ba joogin guriga gub ceelka gub astaanada rid shaqada waa weyn maaha in waxaas loo okortay diinta islaamka ee dadnimada dadweynaha ka yihiin in la dhinto waa waajib muqaddas ah kaasa noo ballan diinta waataan ka baxa inaan waxaan asaga hayno iskaga dhacay inay seejir hada wabillahi tawfiiq gudoomiyaha deegaanka Cada Kibir Daahir Ugaas ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Cada Kibir aysan sugi doonin weerar dambe oo uga yimaada dhanka Al-Shabaab balse iyagu ay ku weerari doonaan meelaha ay ku sugan yihiin dadkan aad u jeedaan maalmo ka hor waxay ku noolaayeen deegaan nabad ah oo nolosha caadiga ah oo ibn aadamka aasaaska u ah ay ka jiraan oo biyaha iyo maxaa la dhahaa isgaarsiinta nimankii sharwadayaasha ahaa ee nolol diidka ahaa ee diin diidka ahaa ee dadnimo diidka ahaa ayaa waxa ay bideen wax qof insaan ah runtii aysan ka suurto gali karin ay ku sameeyeen oo ah ceelkii biyaha ay ka cabi jireen dad iyo duunyo inay ka dumiyeen isgaarsiintii oo ayada markii la fiiriyo biyaha aan wax ay ku taalaba aan la arag in kasto nolosha hadda ay ku xiran tahay in wax lagu kala gato isgaarsiinta meel kasto ay tagaan aan uga daba tagno isqarqaris waa dhamaaday dadkan waa dadkan naf iyo maalba dhaafideen waxaad u diyaar garowdaan rasaasta qoryaha ay wataan afkooda ka soo dhacaysa insha Allah waxa noo hantiya waxa haysataan dhiigiina iyo maalkiina waa noo xalaal jannaan idinka raadsanayna wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug maamulada degmooyinka Cadaado iyo Baxdo ciidamada gorgor qaybta Galmudug ayaa gaaray deegaankaasi waxayna u ballan qaadeen dadka shacabka reer Cada Kibir in dawladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Galmudug iyo maamulada degmooyinku ay garab ku siin doonaan sidii ay isaga ciribtir lahaayeen kooxdaasi Al-Shabaab dadka noocaas wallahi haddaan ka carnaysan naga hari Saleemaan inay Cadaado qaadin kabigiis insa qaadin Cadaadana loo wada socdo aan deegaankeena difaacano dawladdaana garab taagan federaala noo soo socda Galmuduga joogta aan difaacana deegaankeena haddaan cararnana nala kaga hari maayo qofku hadda meeshuu taga furunta ogaada hadda maanta ay kiradaan ka tagno meesha aan tagno ayada furina maalmo furina ku jireyna dhamaanteen waxaan maanta u soo diyaar garownay cadawga meeshaas muuqata taagan oo dadkaan qarribay masaakiinta inaan iska wada dhicino waxaan naga fiirinaydeen garabkeena waxaan in ka fiirinaynaa garabkeega waxaan doonaynaa difaaca inaan la galno waxaan rabnaa inaan kaga tagin waxaan rabnaa inta aad qabataan tobankeeda inaan la qabanaan rabnaa dadka reer Xaaji Salaaman halkaan fadhiya ma waxaan yeelnaa waxa anaga noo roon ilmaha iyagana u daran mise galabta waxaan yeelnaa waxa anaga noo daran ilmaha iyagana u roon taan qaadayna anaga waxa noo daran waa dhimaynaa inaan dhimanno waa ilmahana waxa u roon in anagu noolaamayne ay ku noolaadaan qarni soo socda waxa meeshan ka dhaca anagana nooma dara anigu waxaan leeyahay nafteena iyo maalkeena iyo sharafkeena aan difaacano qof walba ay markuu dhufayska soo galayo inta soo weesaysto oo quraankiisa soo akhristo inuu difaaciisana galo taasana la ka rabaa hadii alla idmo meelaha naga maqan oo wali ay gacantooda ku jirana waxa la rabaa inaan ku tala galno inaysan gacantooda ku sii jirin dadkeenni in sidii xoolihii inta la keeneeyo in la dabro oo la isku xariiriyo la yiraahdo waxa loo sii wadaa meel hebel waa sii keenaysan yihiin annagana aanan waxba jawaab iyo rad ficil aan ka bixin walaalayaal taas waa dulinimo maantay ma ii sheegi kartaan inta deegaanadaas joogteen meeshan waxa fadhida 200 oo nin oo ciidan oo qoriisidata baa fadhisa oo deegaankan u dhalatay 200 oo shabaab oo qoriisidata ya ark ilaa min raas kaamboon ilaa raas caseer markay isaga yimaadeen baxda soo weerarayeen waxa laga keenay raas kaamboon ilaa raas caseer meel kasto shabaab jooga laga keenay deegaanada aan joogno wali 100 meel joogta laguma arag ma dhici karto
inaan unug iyo laba unugood oo barabukis ceelashayadii iyo naftayadii iyo maalkayagii in lagu gubaysto lagu qarxiyo wallaahi oo bilaahi tallaysan oqon geedahay ku jiraan annaga waxaan dhaqan geedkii ku jiraan waxaan dhaqan berrikii ku jiraan waxaan dhaqan luuqa ay soo marayaan ayagaana ku baaba'aya jabka iyo haziimada iyo argagaxana ayagu ku dambayn doontaa waa argagixiso waa ceeb iyo dulinnimo in ay maalin walbaba horteenna wax ku gowracaan ee masaafaday wax ku gowraceen aan dib ugu sii sikanno ee maalinta dambe hadda waxaan taagannahay ardo cada kibir haddii la iska dhici waayo ama intaan ay soo bixi waay lahaayeen waxaa laga yaabaa habeen dambe inay ku sii dari lahaayeen ardo habeenka ka dambaysana ilaa iyo tulooyin ka sii dambeeya taasi waxaan leeyahay in aad ka dhiidhisaan waan hubaa 200 oo wiilo hubaysan baa halkan fadhiso oo dhalinyaro oo aad u qiiroon hadday intaa muujiyaan oo ay cadowga dhabarka u dhigaan waa hubaal ay wejigooda muxuu ahay jiidiyaan cadowga u jiidiyaan inaysan sinaba guuldarro ula kulmaynin wallaahan shabaab idin celi karin shabaabna inaysan istaagi karin horta waxaa la rabaa reecda kabirow iyo deegaamadii shabaab haysteen ragga ka soo jeedow berrina u taqaanaa baraaga u taqaanaa geeda u taqaanaa meel calaamaysanaa taqaanaa indhaha qof kasto in meeshaan fadhiya iyadoo indhaha iska haystay tegi kartaa meel kasta oo ka mid ah inta ka sokaysa ee xiin dheer ka sokaysa oo nimanka cadowga ay joogaan walaalayaal waxaan rabnaa adinkoo aad u mahadsan inaan qof gadaal fiirisaa jirin deegaanka cada kibir ee gobolka galgaduud ayaa ku dhawaad 50 kilomitir kaga beegan koonfur bari degmada Cadaado halka uu ku dhawaad 40 kilomitir koonfur kaga beegan yahay degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud Jeylaani Xasan Cusmaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed deegaanka cada kibir